iminkana beeyada ayaa sanadkii tagay 2021 waxay noqotay waxa labaad ee marka laga tago xoolaha nool ay dhoofiso jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday Soomaaliland sida ay sheegtay wasaaradda ganacsigu waxa soo kordhay ganacsatada ka baac mushtaraya xabkaha sida beeyada fooxa iyo meediga laakiin waxa lagu soo waramayaa in wali loo baahan yahay dadaalo dheeraad ah oo casri ah khadar aadam dirir ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa ganacsiga beeyada waa mid fac weyn oo muddo soo jiray oo marba marka ka dambaysana ganacsatada iyo dadka beeyaysatada ahi ay sii horumarinayeen waxa dhawaan soo badanayay shirkado deegaanka xabagtu ku caan ka tahay laga leeyahay oo tabca isla markaana dhoofiya beeyada runtii company ahaan in badan baanu ka ganacsanaynay aslimaydii waxa la oran karaa waa company ka soo jeeda Harvesting Family oo dad beeyaysata asal ahaan background li ka soo jeeda ganacsiga beeyadana markii hore kulli waxa ka ganacsan jiray bulshooyin kale oo u dhaxeeya dadka beeyaysatada iyo caalamka loo iibgeeyo hase ahaatee anagu waxaanu nahay company ka soo jeeda deegaankii ugu badnaa ee wax soo saarka beeyadu ka soo bixi jirtay gobolka Sanaag waxa ka soo baxa fooxa faleenka beeyada iyo meediga kuwaasi oo ah qaar ganacsi gala taariikhda ayaa xusaysa in muddo dheer beeyada laga dhoofin jiray gobolka Sanaag inta taariikh qoran la og yahay ilaa 5,000 sanadood hadii la eego masaaridi waxa way la ganacsan jirtay dhulka Soomaalida ama Soomaalida way la ganacsan jirtay muddo laga joogo 5,000 sanadood taariikh ahaan beeyada waxa loo adeegsan jiray ma garanaysaa inta badan in de waxa lagu carfiyo ama udug ahaan oo markaa maaragtay masaajidada kale xitaa kiniisadaha xitaa macbadiyada kala duwan ee maaragtay waa lagu udgoonaysiin jiray marka waxa weeye maaragtay adeegsi ruuxiya ama diineed way lahaan jirtay adeegsi dawa ahaaneedna way lahaan jirto ilaa imikadana waa leedahay dawada iyo uduga marka laga tago maxaynu ka ognahay siyaabaha kale ee loo isticmaalo caalamku siyaabo kala duwan buu uga faa'iideystaa runtii xabkahan aynu ka dhoofino wadanka qaarkood waxaa loo adeegsadaa in laga sameeyo cadaro halka qaarkood cosmetics loo adeegsado qaarkoodna loo adeegsado essential oils ama healing oils saliidaha sida la joogo kala daweeya sida ay sheegtay wasaaradda ganacsiga Soomaaliland dhoofinta beeyada ayaa ah tan labaad ee ku soo xigta xoolaha nool dad badan ayaa aaminsan in haddii si casri ah looga shaqeeyo tacabka beeyada laga heli karo lacag adag isla markaana shaqo abuur ay u noqon dad ka badan kuwa hadda ka ganacsada waxaan aaminsan haddii la kordhiyo qaab casri ah oo san dunida wuxuu maaragtay oo wax soo saarka u baalayso loo casriyeeyo waxaan aaminsan tiro badan inay soo bixi lahayd laakiin ilaa hadda inta aanu diiwaan gelinay ee aanu tiradeeda hayno sanadkan 2021 waxa dhoofay 1,800,000 kilogram oo isugu jira foox beeyo malmal iyo saliid beeyada oo isugu jira wax Soomaaliland gudaheeda lagu farsameeyay iyo wax iyadoo natural ah dabiici la dhoofiyay barnaamijka caawa iyo caalamka intaas ku soo gabagabeeyay waxaan idin leeyahay waa mahadsantiin nabadgelyo